kale xaraarada meesha ugu sareeya isagoo taagan ayuu haddana in badan ay buruudada meesha ugu dambeeyay istaagayaan waxa dhici karta hadda maalan in dadka diin lagala hadlayo wadaninimo in lagala hadlaayo masaalix mushtaraka wanaag in laga hadlaayo dadka waxa dhici karta xamaasada qimada inay taagto hadhow mid nacraad jaahiliya wado iyo tafarruq iyo waxyaalo kale hoos haduu wax ugu sheego wixii dhammaa marka waa la ilooba dhinaca kale ayaa marka la istaagaa taa marka waxaa keenaysaa ummadii marka inaysan thawaabid aysan yeelan ee had iyo goor la tacaaduf iyo cawaadif iyo maartay xamaasaad xaq iyo xaq u kala socota inay ummadii ay hogaamisaa dhici karto nuqdada lixaad oo iyadana dhibaatooyinkeena kamid waxa weeyaan waxyaalaha awlawiyaadka aan siino ummadaha badana waxay awlawiyaad siiyaan wax la yiraahdo maslaxa mushtarak diintu waa maslaxa mushtarak wadanka in nabad lagu noolaado waa maslaxa mushtarak hantida caamka la wada haysto in la wada ilaashado waa maslaxa mushtarak soomaha marka waxa Soomaalida aad ugu yar maslaxada caamka in la ilaaliyo in diinta tadxi ahaan loo sameeyo in maslaxada mushtaraka beledka lagu noolyahay maxaafadadiisa diinta xafidaadeeda waxa caamka ah oo maanta ma arkaysa aanan ka wada maarmin inaan xafidano in lagu leeyo ee marka wax awliyad la siinayo qofka horta maslaxada shakhsiga xoolihiisa gurigiisa dadkiisa maxaa asaga wixii kordhi kara waxa soo raaca qabiilada oo ayadana aan daacad aan loo ahayn laakiin un awrka lagu kufsado awrka lagu kiciyo taasa iyadana marka soo raaca taa horta waa cawaamisha maanta ma arkaysa daakhiliga ah oo badana dhibaatada noo keento cawaamisha iijaabiga waan sheegno waxa kamida inay dad awood badan yihiin oo maanta ma arkaysa surca wax ku injaazi kara guusha maanta ma arkaysa gaari kara hadii ilaahu gaarsiiyo nasiibna maanta ma arkaysa u leh laakiin maxaa naga hor istaagsan cawaamisha kale aan soo sheegnay taa iyadoo noo tahay ayaa haddana waxaa noo dheer marka cawaamil khaariji oo aad iyo aad maarad u culus oo gaalada iyo acdaada ay noo qabaan cadow aad iyo aad mustaxkim ah iyo xiqdi maanta ma arkaysa dafiin ah ay u qabaan ama kuwa xuduudana nala jooga ha ahaado ama kuwa kor maanta ma arkaysa ha ahaado sawma oo haddaba sida aan soo aragnay min qadiim zaman ila Portugal laga soo gurmaday waqtigaas ila maanta waxa weeye maaratay dhibaatadii way taala cadawgii waa ka markastaba inuu nawiiqo inuu dawladeena baabiyo inuu maaratay isu kaana diro inuu dhibaatooyin noo geysto ayuu maanta ma arkaysa isku dayay taa haddii aan ka soo baxna cawaamisha laba ahdiba ayaa markii dawladnimada qaatay la soo maray ahdigii xukuumadda madaniga ahaa ahdigaas samaad fiican waa lahaa diinta wax muxaarabo iyo cidaa ma uusan jirin qabiilnimada lafteedu aad iyo isnaac mustaxkim ma ahayn inkastoo dawladdu ay daciif ahayd oo qaraaraadku iska yaraayeen wax hada ru'yo waadixo istiraatiijiye badanna maanta ma aysan lahayn ahdigii ishtiraakiga ahaa oo dambe waxyaalihii jiroo dhan waa jireen laakiin meeshii waxaa ku soo biiray wax la yiraahdo cidaa diini in diinta la dagaalamo diintii la hujuumo oo dhaxalkii iyo waxyaalihii ku saabsan la hujuumo culumadii la laayo dadkii dacwada waday iyo culumadii xabis laga buuxiyo taas marka waxay noqotay cunsur maarta aan la aqoon Soomaalida oo hadda diintu khiyaar iska jirto culimo la karaamay la arki jirto culimo lagu ihaanaysto ayadana cunsur cusub oo soo baxday noqday waxa kaloo cunsur kaloo soo baxay in daqdigi iyo tasalludkii shacabka oo aad iyo aad marka u bato daqdiguna wuxuu keenaa marka tamarrud iyo isnaac taas oo keenay marka inay thawraad iyo cidaad iyo wadankii burbur oo loo maleeyo wadanku un kacaanku inuu iska leeyo qof walba
oo ku fekeray sidoo maartay uga tafalludi lahaa marka waxyaalahaas cawaamilkaas faraha badan oo ama qaarna ay nafsi ay yihiin qaarna ijtimaaci ay yihiin ayaa aan qabaa inay maartay dhibaatadan ay keeneen wallahu a'lam sallallahu ala muhammad wa alihi wasallam الله الشيخ جزاك الله خيرا على الكلمة طبعا الدكتور عاد حوق أسار العوامل قيبتي دنبنا وحو تابتي أسبابتي ورنتي يضا ظل مرة مركا وتابتي هدي وقتي كلا أسوهر إن شاء الله وانقصوا الله بندنا الدكتور أحمد طاهر يسوي أسبابتي فافاهين دونا بإذن الله سبحانه وتعالى وحنوجد بيا طبعا ولي وحنوجد لنا العقوبات الجزئية وحي لم يدا وحنوجد بيا بإذن الله سبحانه وتعالى مرحلة ما بعد الانهيار مركي بربركي ودعاي دولدي أي ماشي أي كبحذي ودنكي وقالي دقال سوكي وقالي أمني وفرها وكبحي مدة دائرة رنتي معاناة رنتي ازدبجوغ أنا شعبكم مركا وكويميد مرحلة ذا إيادا إيه لوازم تيدي يوحي النصوم مري إلى وقت الاحتلال لا يسوق رأيا وحنودينيا إلى الشيخ الفاضل محمد إدريس